Conversation waa wada sheekaysi about ku saabsan living letter waraaqad tegid ah teacher macalin and student iyo arday. Conversation waa wada sheekaysi about ku saabsan living letter waraaqad tegid ah teacher macalin and student iyo arday. Inshallah hadalkeen waxaan oo bilaabi doonaa student ardayga. Good morning, subax wanaagsan sa mudane, my friend Mahir, saaxiibkayga Mahir has given me, wuxuu ii dhiibay a leave letter waraaqad tegid ah. Good morning sa, subax wanaagsan mudane, my friend Mahir, saaxiibkayga Mahir has given me, wuxuu ii dhiibay a leave letter waraaqad tegid ah. Teacher macalinka, why sababtee is he on leave, uu u tegay asaga. Why sababtee is he on leave, uu u tegay asaga. Student ardayga, he is celebrating, wuxuu u dabaaldegayaa his 8th birthday, dhalashadiisa 8aad in his house, gurigiisa. He is celebrating, wuxuu u dabaaldegayaa his 8th birthday, dhalashadiisa 8aad in his house, gurigiisa. Teacher macalinka, why sababtee did you not attend, ad ugu qaybgeli weysay the function shaqada. Why sababtee did you not attend, ad ugu qaybgeli weysay the function shaqada. Student ardayga, I will meet him, waxaan la kulmi doonaa this evening, fiidkaan. I will meet him, waxaan la kulmi doonaa asaga this evening, fiidkaan. Teacher macalinka, have you purchased, muu iibisay any gift, wax hadiyad ah for him asaga. Have you purchased, muu iibisay any gift, wax hadiyad ah for him asaga. Student ardayga, yes sir, ha mudane, I have purchased, waxaan u iibiyey a story book, book sheeka ah for him asaga. Yes sir, ha mudane, I have purchased, waxaan u iibiyey a story book, book sheeka ah for him asaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal muuqaalkan like saar. Inshallah casharkan haddaad fahantay commentiga, qaybta commentiga. Inshallah casharaan fara badan ayaan soo wadnaa. gambaleelka furo si adiga aad ugu faa'iidaysato kanaalkeena.